madaxda qaranka ee kala duwan madaxdii hore ee qaranka martida beesha caalamka ay nagala soo qayb gashay munaasabadan safiirada saxaafadda caalamiga ah iyo ta qarankaba waxaan dhammaantiin mar labaad idin leedahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan shacbiga reer Somaliland meel kasta joogaan mar labaad ku bogaadinaya munaasabada weyn ee 35 guurada Somaliland la ictiraafsan yahay aynu xusayno waxaan u mahadnaqayaa guddigii qabanqaabada ee 18 May waxaan u mahadnaqayaa taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qaranka waxaan u mahadnaqayaa ciidamadii qaranka iyo ururada bulshada ee maanta ka qayb qaatay xafladii weyneyd ee aynu gelinkii hore sameynay waxaan u mahadnaqayaa dawladaha إن سوهم باليي 18 May maanta madaxweynaha dawladda Israa'iil sidaan maanta markii hore sheegay uu ka gudoomay waraaqii aqoonsiga danjiraheennii aynu u magacawnay dalka Israa'iil waxaa kaloo aanu maanta telefoon ku wada hadalnay ra'iisul wasaaraha dawladda Israa'iil ra'iisul wasaaruhu wuxuu iga codsaday inaan shacbiga Somaliland gaarsiiyo hambaliyada 18 May ee isaga iyo dawladda Israa'iilba dawlado kale badan iyo ururo badan iyo saaxiibo badan oo aynu soo hambaliyeen way jiraan waxaan runtii ku faraxsanahay in maanta 25 dal ay nagala soo qayb galaan munaasabadan 35 guurada Somaliland waxaan kaloo maanta daafuray maxadka aqoonsiga iyo madax bannaanida Somaliland oo maanta ka daafuray magaalada Hargeysa معدكاس وعقدومية كنغنية صاحبك Somaliland سير ويليام جافن وحكو هلينية صاحب بدن أو Somaliland لدهي وهو ديارة إن كبدن لبكون أو صاحبة Somaliland ودريد أوردن كالتشوجة إن يجعلك جيستان ما حد كاسي وحورين دونا تاريخ Somaliland وحورين دونا هلقك Somaliland وحورين دونا ضد الشرعي اعترافك Somaliland وحنا لقيت ديوان قليل وممكن ديوان قشين بعدكم dalka Ingiriiska magaalada London waxay isugu tagay dad badan oo jaamacadaha wax ka dhiga oo professorra oo sharciga u badan waxaan rajaynaynaa in maanta ay laga sii daayo kulliba saxaafadda daafurkii aanu halkaa daafuray iyo khudbadii laga jeediyeyba arrintaasi waxay soo dhaweyn doontaa dooda Somaliland ee dunida waxaana ragga halkan maraya rag ay ka go'an tahay in qadiyadda Somaliland si buuxda looga bina dhaliyo waxa ka mid ah waxa yar baan deganaa dalka Finland oo xildhibaankaygii Finland oo isna caawinay la jooga Kimmo Kiljunen
oo isna uun ragga dad dagaalka ka qayb qaadanaya uu ka mid yahay hadda la karto waxaa si gaar ah ugu mahadnaqaya haweenka Somaliland oo runtii ka dhex muuqday dabaaldegyadii dhammaan aynu ku qabanaynay magaalooyinka iyo xaafadaha muddadii bisha ku dhoweyd ee dabaaldegu socday waxaan kaloo mahadnaqayaa dhalinyarada oo iyaduna runtii laf dhabar u ah Somaliland waa dal la aqoonsaday waxa la yaab leh inagu Soomaalida waxa la jecel wanaag Soomaalida ma oran karo laakiin dawladda xamal Somaliland jeceshay dhibaato marka waxaan oran lahaa Somaliland way tashatay gurigiinu gubanayay gurigiina iska hagaajista annagu inaan nabad heshaan baan jecelahay idinkuna waxa jeceshiin Somaliland dhib ka dhacdo ama ka dhici maaya Somaliland way isku filan tahay arrimaheeda iyada xalilata UN uma yeedho ciidamo sheeyana ma ilaaliyaan Somaliland arrimaheeda iyada ka adag iyada ku filan iyada xalisha cid kale uma baahna marka idinku ama Uganda u yeedha ama qolo kale u yeedho arrimihiina ku filaada kuwa Somaliland iska ilaawa Somaliland intii la ictiraafay kadib waxa soo baxay intii nacbayd Somaliland ma banaanka soo baxday oo campaign adag ku jirta oo meesha Somaliland lagu maqlo ordaysa marka arrimaheena hoos baynu wadanaynaa laakiin dhammaan khayr bay ku dhamaanayaan hadii alla ka dhigo waxaan shacbigayga ka codsanayaa laba arrimood haddaynu ku dadaalno oo adkaysiga 35 sanadoodna sii wadno oo aynu nabadana ilaalino midnimadana ilaalino waxaan boqolkiiba boqol ku kalsoonahay اعترافكم sidoo dhan yahay manayo dunidu weyn way اعتراafaysaa dalkuna maalgashi uu helaya dad yar baynu nahay oo tiro yar dhul weyn baynu leenahay oo dihin oo khayraad ka buuxo marka hadaynu waxeena hagaajisano oo aynu beeraheena beerano وإنه معدنتي أن الله صواب حنا وإنه جبدين يدلكو وحنا الرميس معي هدي إنه هذا شقينه إن Somaliland ونقول يضل هذانا وكم من ضغطك هو هذا السن دنيا هدي الله يلاته وحنا بليين يا شعبي Somaliland وحنا مهندقية دولة إسرائيل هي دولة كلا بدن أول هذا النص هذا بنقول مهندقية دولة بدن ما كجرابي يعني Somaliland وحنا رجينا إنه هذا تحدينا إن أرميه إنه يقول كل ما أنا يعني هذا الله ينهضه Somaliland هالنولاتو Somaliland هالنولاتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته